waxa la yaqaan qofku marka uu seexdo inuu arko riyooyin kala duwan mararka qaarkood wax iska noqon kara riyooyin farxad leh isagoo meel wanaagsan jooga mararka qaarkoodna riyooyin cabsi leh oo qofku ka naxo laakiin dhammaantoodba waxay ku dhamaadaan marka uu qofku soo tooso ee uu arka inay waxaas khiyaali ahayd wali laakiin ma aragtay qof isaga oo soo jeeda ay maalin cad tahay haddana riyoonaya xaaladaasi waa xaalad xanuuna oo in badan oo ka mid ah dhalinyarada ku dhacda magaceegana waxaa la yidhaahdaa axlaamul yaqada axlaamul yaqadadu waxa weeyaan qofku inuu in badan maskaxdiisu ay ka fikirto oo uu sawirto isagoo guulo badan oo waaweyn gaadhay hadduu tusaale ahaan siyaasi ahaa waxaa laga yaabaa inuu iska sawirto isagoo madaxweyne noqday dadku soo dhaweynayaan meelo kala duwan tegay haddii mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu iska sawirto isagoo oo hanti badan yeeshay lacag ley noqday guryo iyo gawaari badan iibsaday mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu qofku iska sawirto isagoo oo safray meelo kala duwan tegay waxaa laakiin uu qofku maskaxdiisa ku sawiranaya dhammaan dhacdooyinkaasi maaha dhacdooyin dhacay laakiin waxay ku kooban yihiin un keliya maskaxdiisa su-aasha isweydiinta le waxa weyn haddaba xaaladan oo kale sidee u dhacdaa caqliga bini aadamku ilaahay wuxuu sameeyey wuxuu u qaybsanaa laba qaybood qayb waxaa loo yaqaanaa alcaqlu lwaaci waa caqliga soo jeeda iminka muuqaalkan aad daawanayso macluumaadkan aan sheegayo caqliga kuu kaydinayay waxa weyn alcaqlu lwaaci baa la yidhahdaa waxaa kaloo jira qayb kale oo caqliga ka mida oo la yidhaahdo alcaqlu lbaatin oo qaybta maskaxda u qaabilsan kaydka oo wixii caqliga qaybtaa u gudbaayey qofku marna ma iloobo tusaale ahaan iminka suuradaha fudud ee qur-aanka oo kale qofku xataa isagoo maskaxdiisu maqan tahay buu akhrin karaya isagii maskaxdiisa caadi caqligii soo jeeda uu maqan yahay waxa laga yaabaa inuu suxsan yahay xataa dhakhtarka jiifa haddana qur-aan baa laga yaabaa inuu akhriyo ama wax kaloo xafidsanaa yaa u akhriyay qofkii dee waa qaybta caqliga u qaabilsan kaydka ee loo yaqaano caqlulbaatinka mushkiladda laakiin jirtaa waxa ay tahay caqlulbaatinku ma kala saaro waxa runta ah iyo waxa khiyaaliga ah tusaalaan idin siinayaa arday tusaale ahaan soo dadaalayay muddo dhowr sano ah oo waxbarasho jaamacadeed soo waday maalinka ay qalinjibintiisa gaadho uu ku farxayaa farxad aad u badan juhdigaa badan uu soo bixiyey maskaxdiisuna waxay soo daynaysaa hormoon loo yaqaano dopamine oo u qaabilsan maskaxda qaybta qofku inuu farxad iyo ranreen dareemo laakiin isla ardaygii isagoona weli heer kaa gaadhin iyo qalinjibinta iyo farxadda isagoo gurigiisa iska fadhiya hadduu sawirto uun khiyaali ah isagoo qalinjibiyey isagoo loogu faraxsan yahay caqligiisii isla maalinkii uu qalinjibin lahaa hormoonkii uu soo dayn lahaa mid la mid uu soo daynaya waayo ma kala saarayo waxa runta ah iyo waxa khiyaaliga taasi markaa waxay keentay in dad badan ay ku dhex noolaato shakhsiyad labaad oo aan ahayn shakhsiyadda imika uu joogo laakiin shakhsiyad khiyaaliya oo isagu samaystay qofka xanuunkan qaba waxaa lagu arkaa calaamado kala duwan waxaynu kusoo koobaynaa 5 calaamadood haddaad 5 calaamadood mid ka mid a isku aragto ama 2 ama wixii ka badan waxa aad tahay qof xanuunkaasi qaba lambar 1 calaamadda ugu horeysa waxa weeyaan in aad ku bixiso waqti aad u badan adiga keliga fikir khiyaali oo adiga ku gaara walibana aad sawirato waxyaabo badan oo guula ah oo aanan wali dhicin taasi waa kow calaamadda labaad waa calaamad qosol leh waana wax meelaha ugu badan ee qofka laga arko waxa ka mid ah inuu qofku baayaco ama uu raadiyo qiimayaashooda alaabo una maanta goyn karin tusaale ahaan waxa ugu badan ee la arka waxa ka mid ah qofkii YouTube-ka gelaya wuxuu daawanayaa gawaarida imka ugu dambeysay soo baxday ama gawaari qaali oo eegaya maskaxdiisa waxa ka dhacsan berigaad hantiilaha noqoto gaarigaad iibsan lahayd weyn marka imikaan sii daawanaya waxa laga yaabaa dadka qaarkood waxa u seef garaysan shirkadaha guryaha iyo waxyaabaha dhisa wuxuu ka fikirayaa maalinka aad muxuu ahayay hantiilaha noqoto ayaad guriga noocaas oo kala dhisan doontaa intaas oo dhan waa khiyaali weeyaan marka calaamadaas waa calaamadda labaad haddaad taas ku aragto wadurda soo kac maaha waaqica aad ku nooshahay calaamadda saddexaad meelaha aadka uga muuqda dhalinyarada waxaa ka mid ah dhinaca guurka rag iyo dumarba uu qabtaa waxaa laga yaabaa inuu qofku iska sawiranayo qofku guursan lahaa sifooyin isaga maskaxdiisa uu kala soo baxay ma aha laakiin wax jira wiilkii oo kale gabadh sidaaya gabadhii oo kale inay sawiranayso wiil hantii la wadan hebelka yimid isaas oo kale ilaa intaasoo dhan ay waqti badan ka qaadato kadibna hadhow qofkii uu waqtigii ka dhaco meelaha kale ee uu sida cadaanka uga muuqdo qodobka afraad waxa weeyaan dhoofka
dadka qaarkood waxaa ku dhacaa buufis waxa la yidhaahdo wuxuu ku riyoonayaa isagoo tegey wadan hebel laga yaababa inuu processkii xataa wado laakiin waxaa waqtiga ugu badan uu kaga dhacayaa inuu maanta oo dhan ka fikiro uu sawirto isagoo wadankii tegey isagoo noloshiisa isbedeshay isagoo soo shaqaystay marka khayaaliga wanaagsan oo maskaxdiisa u sawirayso ku nool yahay waxay u diidaysaa noloshiisii waaqica ahayd inuu wax ka qabsado in badan waxaan aragnaa dad waxbarashada uga hadhay dad shaqada uga hadhay keliya ta khayaaliga maskaxdiisa ku hayay marbaad dhoofi doonta xataa calaamada shanaad ee lagu gartaa waxa weeye waxa ay soo gashaa xataa xagga arrimaha diinta oo qofkii wuxuu iska suuraysanaya isagoo wax walba xumaan sameeyay ayuu haddana leeyahay adiga ilaahay jannada ku geynaya yuhuudda iyo kristanka ilaahay muxuu ku canaantay quraanka waxay yiraahdeen waqaaluu lan yadkhula aljannata illa man kana huudan aw nasara jannaba geli maayo bay yiraahdeen qof yahuudiya ama qof kristana mooyaane muxuu ilaahay ugu jawaabay tilka amaniyuhum wa riyo waxaas qul haatu burhanakum in kuntum saadiqiin ilaahay markale isagoo la hadlay dadka muslimiinta ah waxa uu yiri laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab riyadiina iyo riyo yahuud iyo kristan midna janno lagu maqalay man ya'mal su'an yujza bihi qofkii xumaan sameeya waa lagu abaalmarinaya wuxuu doonaha ahaado nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay xadiis aad iyo aad u la yaab badan wuxuu nabigu yiri alkayisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut qofka geesiga calaamadaha lagu yaqaan waxa kamida man daana nafsahu wa qofka naftiisa xisaabiya wa amila lima ba'da al-maut geerida kadibna wuxuu amalkiisa isku diyaariyaa qofka caajiska nabigu wuxuu ku sifeeyay laba sifo kow waxa uu yiri man atba'a nafsahu hawaha wayan wa qof hawada naftiisa iska raacay calaamada labaad waa calaamad khatar badan wa tamanna ala allahi al-amani ilaahayna riyooyin khayaaliyo maskaxdiisa isagu u samaystay ilaahayna ka aamina wasiraahda adigu muxuu ahaayay jannu ilaahay ku geynaya uu ku dambi dhaafay isagoo aan amal qabin marka marnaba yeena iskaga ka khaldamin rajada dad badan wax iskaga laaqan rajada iyo riya maalmeedku waa laba shay oo kala duwan way fiicantay qofku inuu rajo ku noolaado hami sare inuu yeesho laakiin maxaad ku kala garanaysaa hamiga sare iyo rajada waa wax wanaagsan waxyaaba bila aadanka ilaahay nimcooyinka waaweyn siiyay waxa kamid ah inay maskaxdaadu sawiran karto mustaqbalka halka aad tagayso laakiin maxaa la rabaa waa inuu amalkeedii iyo shaqadeedii aad hayso marka waxaan aan kula talinayaa qof walba inuu noloshiisa waaqica ee maanta joogo ku noolaado kuna dadaalo mustaqbalka uu jecel yahay halka uu rabo inuu u dadaalo dadka xanuunkan oo kala haya waxa la yiraahdaa waxa ka dhiman ama waxa ka maqan arrin aad weyn arrintaas waxa weyn waa tarkiis waxa loo yaqaan waa focus inuu qofku yeesho waana sifa aad iyo aad u wanaagsan oo dadka noocan calaamadan oo kala leh ka maqan insha Allah waxaan rajaynayaa xalqadeena soo socota inaynu kaga hadli doono tarkiiska iyo sidii aad u soo ceshan lahayd aad ba u mahadsantiin